ويا سيشن كان waxaan ku sameeynaa see qof vilanteno inta jooga ib giisan jeegreno 10003 oo degmada hodan jooga soo baxay wuxuu imaaday degmadan uu yimi ceelasha biyaha imaaday okay remember ceelasha biyaha already waxa loo soo advertise gareeyay hadii aad jeegreno show vilans brief vilanten waa lasoo advertise gareeyay right qofka marka waa imaada shaqo ka qabanaya wuxuu ku xirtay for example port 21 uu ku xirtay okay sababta port 21 ugu xiranaya qofkan geeska ah hadii aad ku laabato jeegreda show vilans brief waxa arkaysaa intaano port inay available ay yihiin okay port 23 ma ahminka marka tijaabada sameynayna waaya port 21 available waa waxaan ku soo dareynaa vilantena ku soo dareynaa maxaa sameeynayna global configuration ka galeynaa you already know this interface f021 switchboard access vilanten simple access wax kale ma kor markii ahaa switchboard mode access waa dhigi kartaa kadibna switchboard access vilanten waa dhigi kartaa description kiisa dhaan waa vilanten testing okay bal aan save gareeyo qofkan marka computerkiisu wata wuxuu og yahay vilanten inuu isticmaalayo ip address ah let me try 10.0.0.2 waa soo isticmaalay 3 waa isticmaalay 4 gateway-giisana bal aan ka dhigno 10.0.0.1 logically waxa ogahay fariintan inay gaari karto vilanten computerka yaalo without an error even waxa ogahay intervilan kan oo ka faa'iideysanaya inaa gaari karo vilanada kale oo diriskeyga ay sarfarada iyo every single thing oo meesha yaalo sooma dhamaantood waa gaari kara su'aasha lagu weydiinayo imtixaankana laga yaabo in lagu weydiiyo waxay tahay waxaan rabnaa in vilanten oo degmada hodan laga leeyahay laga block gareeyo trunk linkigan si dadka inta joogo vilantena ay communication ula sameynin dadka kale degmada hodana laakiin ay communication la sameeyaan hadii ay jiraan vilanten kale okay waxa block gareynayna waxa block gareynayna let me try this vilana waxa ka block gareynayna inuu inta la soo marsiinin okay meeshaana marka block ka dhigayna laakiin hadoo jiro vilanten oo inta ah mid kale oo inta yaalo labadan communication waa inay sameyn karaan laakiin kan traffic-giisa inta markuu imaado oo rabo inuu ka baxo godkan G0 markuu rabo inuu ka baxo oo rabo inuu aado this interface ha laga block gareeyo concept-gana la fahanteena uma leena again waxa arkaya traffic-kan oo vilanten oo yaalo degmada ceelasha in la gaarsiin karo again traffic yaala degmada hodan to disable this trunk linkiga waxa u sheegaynaa in la diiday vilanten either ka sameey server area ama ka sameey client area let's do it in server area switch server kan galena CLI ga galena halena no weyne ko halena enable show VTB show interface G01 egg interface kan again soo qaata cable keyga this interface arkaysan G ee ku qoran tahay G01 trunk waaye data la asal soo dhaxmarsiinaya okay I have an idea beautiful one waxa ognahay this inuu tunnel yahay oo every VLAN la soo marsiinayo maano waxaan rabnaa inaan ka block gareeno vilanten is not allowed there si aan sameeyna marka interface kana galeyna waa jeegareynayna waxa leenahay switchboard maxaa loo ogol yahay horta godkaas inuu qaado number 1 waa trunk number 2 waxa loo ogol yahay area 1q of course trunk number 3 fiiri meeshan qaybta ugu horeyso capture VLANs allowed all VLANs loo ogol yahay all VLANs loo ogol yahay ana waxaan rabnaa all VLANs in loo ogolaado except vilanten maxaa sameeynayna xalena config terminal interface G01 gudaha u galeyna
gudaha marka u galno waxaan leenahay switchboard trunk allowed VLAN no allowed VLAN maxaa samaynaynaa VLAN ka u baahanaa sheegeena all no عفوا except you know this except is switch badan ma lahan feature kan switch badan ma lahan yaa lagu tashanin adi maxaa laga rabaa inaad tiraahdo except ama all deny waa samaynaynaa except VLAN 10 okay so hadda haddii aan jeegareyn aan idhaahdo to show interface G0/1 kadibna aan raacsiinay switchboard meeshaan fiiri marka still allow it waaye let me try haddii acceptgaas ay noo shaqeeyda data ka soo direena VLAN 10 aan u direena you see VLAN 10 waa la diiday waaye VLAN 20 data ka soo dir kan u dir no this is a problem this is a big problem except I see some error all VLANs except the following okay so except the following hadaan xataa inuu ogolaado waayo VLAN 10 kaliya inuu ogolaado in la gudbiyo okay so waa jeegareynaya sababta liigu diidi ka sababta liigu diidi waa jeegareynaya laakiin that feature switch kastoo lama lahan marka aan rabno inaad diidno waxaa leenahay no switch so hadda waxaa leenahay markii switchboard trunk okay على مثال هذا سيرتي محركة allowed VLAN okay محسمين هنا allowed VLAN مركان نيرانو لو option بيننا ولا all هذا all محاول دمانتود أوغلو okay so حالينا هاي add أنا add أنا أفضل okay add محاول VLAN هذا عربنا إلا allow جريا ماشان شيء وحال allow جرينا 20 30 40 50 يلا allow جرينا command loo dhexaysiinayo ogaad waxa leenahay enter okay so 20 29 6 waa switch isticmaalayo way xabad ugu daraya mar laakiin problema imaanay xabad ugu darayna daari switchboard add 30 daa'iraadu 20 override lagu sameeynaya waa jeegareynayna do show interface G01 switchboard okay so أنا interface كان كشقينه interface خلط المياه ما فاهمينه yeah G01 okay VLAN 30 okay something is wrong فصحت وهذا ذكرتها yes thank you so VLAN 20 30 40 50 thank you aadka waxaa loo isticmaalaa markii extra aad sameynaydo alright extra 20 30 40 50 oo ogolaatay just waxaa rabtaa again inaad ku darto extra VLAN that's why I isticmaalnaa hadda let me check marka oo kusoo laabanayna thank you interface G01 switchboard hadda fiiri marka trunking VLANs enabled VLAN 20 30 40 50 concept go kusoo celinaa insha Allah hadda isla processkii haddii aan maro oo aan do VLAN 10 u allow garey maxaa dhacay all these inta ku xusan VLAN 10 kaliya la aqbalaa fiiri VLAN 10 bisa la aqbalaya si loo xaliyo marka waa ku daraad ogaadeen si loo xaliyo marka
10 loogu soo dara waxaa adeegsanaynaa switchboard trunk allowed VLAN add 10. So add 10 markaa iraado oo boortiga aad jeeg gareeyo dadkii horena consistency ay ahaanayaan kii cusbaan waa ku darnay. So hadda waxaan ka reebaynaa marka VLAN 10 aan reebaynaa marabna in communication la sameeyo. Alright, si loo rabay maxaa sameynaynaa switchboard trunk allowed VLAN remove 10. Okay, remove 10 waa ku soo celinaya concept ayadoo nadiif ah. So haddii aan jeeg gareyno marka hadda interface-ka maxaa arkeenaa 20 iyo 30 iyo 40 loo ogolaado. Remember communication keena haddaaya intii noo caadi ka ahaa. hadda data haddaa soo qaado oo aan u diro VLAN 10 lama gudbinayo, laakiin maxaa rabaa VLAN 20 inuu VLAN 10 inta yaala data u diri karo. Okay, data inuu u diri karo must waay, waajib waay. The problem is me. hadday markaa systemka idiin soo diraaye switchkana si qalada iskaaga tirtire. So I don't know inaa IP routing u sameeyay in kale show run IP routing waa u sameeyay. Okay, something is wrong. command waa saxan yahay, systemkayga marka reboot u diraayo waa usoo laabanaya, right? So waxaan rabaa every single VLAN in loo ogolaado meeshan except VLAN 10. Let me do one thing. labadan isku dhow of course way isgaarayaan. labadaanna yes, labadaanna okay. Why labadan isku gaaraynin? Something is wrong. waana error ani aan sameeyo of course mana aqaan meeshu ka jiro. So computerkaana jeeg gareynaynaa IP giisa. Desktop IP configuration. computerkan 10 oo wataa miya 23 oo ku xiran yahay. Okay, labada mis gaarayaan because same area they joogaan in isgaaraan waa. Yes, okay, labada mis gaarayaan. It should, no it should not, because this is client. Like something is still wrong, I feel it. Yes, okay. labadan waa isgaarayaan of course. kan wuu gaaraya VLAN I think inuu ahay VLAN 40 VLAN 10 inuu gaaro qaybtan waajib waay. Yes, okay. noo dejiye kubadda marka, noo dejiye way. wax yar raali ahaadeen waa yahay, raali ahaada. Okay, I know conceptigan anaa khalad xaggayga imaaday, so waa idinka raali gelinayaa, waana energy-ga badnaa ay ahay inaa wax qalda, right? So go-aanka wuxuu ahaa in la diido VLAN 10 in la diido, loona ogolaanin inuu soo dhex maro this trunk link. si marka loo diido waxaan leenahay systemkeena waxaa gelaynaa interface-ka aan ugu talagalnay in wax laga diido ama loo ogolaado in la dhex marsiiyo. Soma? Yes. intaa marka waxaa ku qoranay switchboard trunk allowed VLAN iska u baahannahay dhan yaa inta ku sheegaynaa 30 40 for example wixii la midka. inta markaan sheegno waxaan jeegareynaynaa interface-keena anagoo adeegsanayno show interface ama do show interface godkeena, kadibna aan leenahay switchboard. inta marka waxaa u ogolaana 20 30 40 extra VLAN ku dara 50 markaa ku dareed waxaa mamnuuca allowed VLAN inaad qorto kadibna aad 50 dhahdo. waxaa ka qurux badan inaad dhahdo allowed VLAN add kadibna aad sheegto VLAN-ka aad u baahan tahay in lagu daba qabto. So this process marka waxay suuragelisay in 10 dhexdooda ay communication samayn karaan. 10 laakiin aan la soo dirin, aan loo dirin qaybtan. labo 10 in loo dirin tan xataa diriskeeda ah. VLAN 50 iyo VLAN 60 in loo diido 10. sababta loogu diido maxay tahay 60 iyo 10? anaga waxaan rabnaa kaliya in inta laga xiro, laakiin wixii inta ay communication la sameeyo just ayada communication la sameyn kartaa.
sababta loogu diiday inay diriskeeda communication la samayso waxay tahay translationkii too ka dhici jiray translationka wuxuu ka dhici jiray in la soo dhex maro trunk linkiga loo gudbo switchka soo turjumo kadibna inta la keeno hadda packetkan fail garoobay haddii aan furo let me just integrate packetkan fail garoobay haddii aan simulationka doorto oo aan jeegareeyo okay waxaa la dirayaa in kula ARP yaa la dirayaa address resolution protocol ARP shaqeys muxuu ah IP address haysta I don't know MAC addresska datadan lagu diri lahaa datadan MAC addresska lagu diri lahaa I have no idea switch shaqeys maxay tahay I don't know IP address but I do know MAC address shaqaas marka labada cid isku turjumaysa waa ARP address resolution protocol marna waxa haysta IP ga MAC address ka maqan hadda anaga IP ga haysana MAC address ka naga maqan request-ga ayaa u diroona marka waxa u diroona gateway-geena u diroona gateway-ga waa this is our gateway ma gaari karno waayo u gaari karin because linkigeena waa blocked hadda marka waa ku dareynaa waxaan ku dareynaa VLAN 10 VLAN 10 soo kuma darin remember bucket kan hadda aan jeegareynaa waa bucket ku u dambeeya I think kan inuu yahay I have no idea let me just try it waa BC6 midkan hadda let me refresh it hadda daan jeegareeyo fiiri ama aan ka baxo real time aan tago dhamaantood success waa hadda simulationka markaa jeegareeyo fiiri datada BC gaan aan diraayo markii aan furo maxaa arkayaa informationkii oo dhameystiran aan arkayaa why because hadda a load list yo ku jira it doesn't need hadda ARP inuu isticmaalo request directly wuxuu dirayaa switchka ku xiran wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay computer 5 waxa socda computer content switchku wuxuu leeyahay no computer content ma aqaano laakiin talk to me computerkaada MAC addresskiisa then waxaan sheegayaa sub interface ka isticmaalaysa MAC addresskiisa this MAC address yaa leh 2202.2201 waa ogahay 85C inuu isticmaalayo computerkeeda hadda computerka tagno oo config tagno fast ethernet tagno this is our MAC address laakiin yaa waay qofkan yaa waay 2202 yaa waay 2202 waa sub interface ka ama SVI ga ka abuuran switchkaada VLAN 50 dii aan jeegareynaa niraan show interface VLAN 50 maxaa waa 2205 kala maxaa 2201 ah 2201 yaa waay 2201 hadduu VLAN 50 ahaan yaa waay VLAN 40 2204 60 2204 yaa waay 2204 VLAN 20 2202 datada aan raadinayno maxaa waay 2201 I think 2201 inuu VLAN 10 yahay yes for VLAN 10 2201 MAC address kan waa VLAN 10 so sababtu intii dhahay waxay tahay systemkeyga sub interface waxa uu ah VLAN 10 that's why translation ka meesha ugu sameynayo yes I know conceptiga ina confusing ka dhigan confusing ina ka dhigo waa ogahay SVI ga markii la joogo switchka VLAN ka adiga isticmaalaysa wuxuu ku noqonayaa translation kaada meesha uu ka dhacay halka routerka markii aan joognay main interface ko noo ahaa meesha translation kan uu ka dhacay I think ina 1110 so session kan intaan ku ekeysiinayaa wax su'aalaha hadaa qabtaan waa soo dhaweynaya